Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Insha Allah waxaan ka hadli doonaa maanta qofkii ugu caqliga badnaa ee dunida soo mara. Marka koowaad sideen ku dhihi karnaa ninkii ugu caqliga badnaa dunida? Marka koowaad markaan fiirino halbeegga lagu qiyaaso maskax badida ee dadka ee loo yaqaan IQ-ga, wuxuu haystaa ninkan 300 oo dhibcood. Si aad u ogaataan 300 oo dhibcood inay number weyn tahayna, dadka caadiga ah ee normalka ah miqyaaskaas inta badan ama halbeeggaas waxay haystaan dhibco u dhexeeya 85 ilaa 115 dhibcood. Albert Einstein oo ahaa saynisyahankii ugu weynaa ee dunida soo mara qarnigii la soo dhaafay, wuxuu haystay 190 dhibcood, halka ninka aan ka hadli doonana uu haystay 300 oo dhibcood. Taasoo micnaheedu yahay in Albert Einstein dadka caadiga ah ee normalka uu ka badnaa 100 dhibcood wax ku dhow, halka ninka aan ka hadli doonana uu 100 dhibcood ka sii badnaa Albert Einstein. Laakiin su'aal kale waxaan hubaa inay maskaxdaada ku soo dhacdo. Haddaysan ku soo dhicin aan ku xasuusiyo. Haddii ninkan sidaas dhan uu caqli badnaa oo Albert Einstein iyo culimadii caanka ah ka caqli badnaa, muxuu u noqon waayay qof caan ah? Yacni qof la yaqaan sida Einstein, Isaac Newton, muxuu u noqon waayay? Muuqaalka ayaan ku ogaan doonaa insha Allah. Marka qisadiisa dhageysato waa ogaan doontaa wuxuu u noqon waayay. Laakiin waxaan ku soo koobi karnaa inuusan dunida u soo gudbin wax lagu xasuusto. Yacni wax weyn oo muuqda oo faa'iido leh oo uu dunida ku soo kordhiyay ninkaas ma jirin. Qofka aan ka hadli doono maanta waxaa lagu magacaabaa William James Sides. Wuxuu ku dhashay Mareykanka sanadkii 1898. Hooyadiis iyo aabihiis waxaa lagu kala magacaabaa Boris Sides iyo Sarah Sides. Hooyadiis iyo aabihiis asal ahaan waxay ka soo jeedaan waddanka Ukraine. Aabihiis wuxuu ahaa dhakhtar cilmi nafsi, hooyadiisna waxay ahayd sidoo kale dhakhtarad. Labadooduba waxay ka soo tageen waddankooda Ukraine oo ay soo degeen Mareykanka sanadkii 1887. Markii uu dhashay William, hooyadiis iyo aabihiis waxay go'aansadeen inaysan iskool u dirin. Sababta waxay aaminsaneen in iskooladu ay waqti dhammays yihiin, garaadka iyo aqoonta carruurtan aysan waxba ku soo kordhinayn. Waxay go'aansadeen inay gurigooda wax ku baraan, waana ay ku guuleysteen ayaan dhihi karnaa. William markii uu jiray 6 bilood, wuxuu yaqaanay erayada qaar sida loogu dhawaaqay af Ingiriisiga, sida car oo kale oo ah baabuur. Markii uu gaaray 2 sanana, wuxuu akhri jiray jaraa'idka iyo joornaalada. Wuxuu akhri jiray New York Times. Waxaase kaaga sii daran, sidoo kalena wax ayuu qori karay isagoo isticmaalaya aaladda wax lagu daabaco. Wuxuuna wax ku qori karay 2 luqadood, afka Ingiriisiga iyo afka Faransiiska. Inkastoo 100% aanu ahayn oo aad iyo aad wax ugu qori karin, laakiin 60% ama 70% wax ayuu ka qori karay luqadahaas oo waa uu yaqaanay. Intaas xataa naftirkeedu waa mucjiso, sababtoo ah ilmaha 2 sano markay jiraan waa markay hadal bartaan, laakiin 2 sano cunug jiro oo wax akhrinayo waxna qorayo weliba 2 luqadood waa arrin la yaab leh oo cajiib ah runtii. Laakiin waxaa kaaga sii daran sheeko ilaa hadda kuma bilaabane. 6 sano markii uu gaaray William, wuxuu yaqaanay oo si 100% ugu hadli karay 9 luqadood. Luqadaasna waxay kala ahayn Ingiriis, Faransiis, Jarmal, Ruush, Greek afka looga hadlay Greega, Cibriga oo ah luqadda Yuhuudda, Laatiiniga oo ah Laatiiniga luqadaha ay ku hadlaan Isbaanishka iyo Talyaaniga iyo dadkaas, Turkiga iyo Armaaniga. Armaaniguna waa luqadda looga hadla Armenia. Waxaa kaaga sii daran markii 9kaas luqadood wiilkan yar uu soo leefay intaas kuma filaan. Wuxuu sameeyay luqad isaga u gooni ah, wuxuuna ka qoray buug. Luqadaas waa luqad dhammaystiran, waxay leedahay naxwaheeda, waxay leedahay qawaaciddeeda, waxay leedahay xuruufteeda, waa luqad dhammaystiran. Wiilkan wuxuu ka qoray 8 sano markii uu jiray luqadaas buug. 9 sano markii uu jiray wuxuu galay imtixaanka aqbalaadda jaamacadda Harvard waa uu ka gudbay. Laakiin jaamacaddu uma aysan ogolaan inuu dhigto maadaama da'diisu ay aad u yareed. Waxaa loo ogolaaday inuu jaamacadda galo 2 sano kadib markii uu gaaray 11 sano. Jaamacadda intii uu joogay wuxuu noqday kan ugu caqliga badan, xataa macallimiinta wax u dhiga qaarkood waa ka caqliga badnaa. Marmarka qaar wuxuu sameyn jiray inuu muxaadarooyin ama duruus qabto oo jaamacadda dhexdeeda uuna ka hadlo mowduucyo da'diisa ka weyn. Waxaa ka soo qayb geli jiray ardayda, macallimiinta qaar, sidoo kale xataa waxaa imaan jiray dad caadi ah kuwaasoo keliya haddii aanay cilmi ka soo doonayn u imaanaya inay fiirsadaan bal waxa uu soo gudbinayo cunugan yar ee cajiibka ah. 16 sano markii uu gaaray ayuu ka qalin jabiyay jaamacadda, wuxuuna professor xisaabta dhiga ka noqday jaamacad ku taala Texas. Intii uu joogay jaamacadda Texas, wuxuu dareemay ciriiri maadaama saxaafadda oo dhan isaga ka hadlaydo indhaha ku hayday, iyo sidoo kale maadaama ay ka wada waaweynayeen ardaydii uu jaamacadda wax ugu dhigi jiray. Wuxuu nacay noloshaas caannimada ah iyo ciriirigeeda. Wuxuu go'aansaday inuu si caadi ah u noolaado oo caannimada oo dhan uu ka fogaado. Wuxuuna isaga tegay jaamacaddii uu macallinka ka ahaa. Adduunka oo dhanna waa uu ka qarsamay. 4 sano kadib ayaa markii ugu horreeyay la arkay sanadkii 1919 isagoo xilligaas ahaa 21 jir. Xilligaas wuxuu ka qayb qaatay mudaharaad ka dhacay Mareykanka, waxaana lagu xukumay 1 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah. Markii uu ka soo baxay xabsiga wuxuu isaga tegay magaaladii uu joogay, sidoo kalena wuxuu bedeshay magaciisii. Wuxuu halmaamay noloshiisii hore iyo wixii uu ahaa jiray.
iyo inuu macallin ahaa jiray. Weliba waxaa ka mid ah waxyaabihii uu iska iloobay hooyadiis iyo aabbihiis. Magaaladii uu tegayna magac kale ayuu ku joogay, sidoo kale shaqooyin caadi ayuu ka shaqayn jiray noloshiisa markii dambe. Magaalo kasta oo laga ogaado inuu ninkaas yahay uu isaga tegi jiray, wuxuu tegi jiray magaalo kale, magaca ayuu beddelan jiray. William intii uu noolaa wuxuu qoray buugaag badan, buugaagtiisana waxay kala ahaayeen buugaag caafimaad, kuwa taariikh, buugaag fanni kasta leh oo wax kasta uu ka hadlay. Laakiin intooda badan lama hubo inuu isaga qoray oo looma tiirin, sababtoo ah waxaa keenay magacyadii badnaa ee uu beddeli jiray. Buugaagta la hayay mid walba waxaa ku qoraa mid Richard, mid wax kale, mid magac kale. maadaama magacyadiisu ay badnaayeen iyaga dhan lama hubin in isaga lahaa. Wuxuu sidaas isaga noolaadaba wuxuu geeriyooday sanadkii 1944 isagoo 46 jir ah xilligaas, wuxuuna u geeriyooday dhiig madaxa kaga furmay. Mid ka mid ah caqliyadii ugu waaweynaa ee dunida soo mareen isagoo wax saameyn reebin ayuu sidaa dunida kaga baxay. Muuqaalkeeni maantana intaas ayuu ku egyahay. haddii taa markuu ugu horreeyo soo boqod channelka halmaamin like, share, subscribe waa muhiim lana wadaag asxaabtaada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.